country is safe, very safe, and I insist, very, very safe. wasiirka arrimaha gudaha Kenya Kipchumba Murkomen ayaa si cad u sheegay inaanay jirin ciidamo shisheeye oo ku sugan Mandera isagoo ku adkeeyay in amniga iyo dhulka Kenya ay si buuxda gacanta ugu jiraan hay'adaha amniga ee dalka. Murkomen oo ka hadlayay shir amniga looga gorfeynayay oo ka qabsoomay ismaamulka Kakamega ee galbeedka Kenya ayaa shacabka ku wargeliyay inaanan loo baahnayn cabsi isla markaasna siyaasiyiinta uga digay inay arrimaha amniga siyaasadeeyaan. Kenya waa ammaan. Wax khatar ah oo ciidamo shisheeye ka imaanaya ma jiraan. wasiirka ayaa sharaxay in caqabadaha ka jira xuduudaha gaar ahaan dadka ka soo barakacay colaadaha Soomaaliya lagu xallinayo hab diblomaasiyadeed oo horey loo qorsheeyay. mar uu ka jawaabayay wararka sheegaya in ciidamada Jubbaland ay qabsadeen dugsiyo ku yaala Mandera ayaa wasiirka arrimaha gudaha waxa uu yiri And this cheap politics that is being done using security must stop. Maalmahan waxaan arkayay warbaahinta oo sheegaysa in dugsiyo ay joogaan ciidamo shisheeye. Haddii aad fiirisaan muuqaalada, ma aragtaan ciidamo ajaanib ah. Dalkeennu waa nabad, wuuna sii ahaan doonaa nabad. Sitting there, he was a member of national security team. I see sitting there. Murkomen ayaa si gaar ah weerar afka ugu qaaday siyaasiyiin ay ka mid yihiin Rigathi Gachagua iyo Kalonzo Musyoka oo madaxweyne ku-xigeenno horey u soo noqday iyo Justin Muturi oo afhayeenka baarlamaanka soo noqday in ay isticmaaleen erayo ah in ciidamo ajnabi ah ay la wareegeen ismaamulka Mandera isagoo hadalladaasi ku sifeeyay kuwa kicin ah oo sal iyo raad toona lahayn. That have visited our nation, you know that we are going to deal with those issues and we have always dealt with. dhanka kale qaar ka mid ah madaxda mucaaradka iyo hogaamiyaasha Mandera oo ay ku jiraan barasaabka Mandera Maxamed Aadan Khaliif iyo Senator Cali Roba ayaa ku baaqay in ciidanka Jubbaland si degdeg ah looga saaro Mandera iyagoo ku andacoonaya inay khatar ku yihiin madax bannaanida dalka Kenya. Kenyan, if we are part of Kenya, BB1 border point 1 is dadka deegaanka border point 1 ayaa iyaguna sameeyay banaanbaxyo iyagoo sheegay in ciidamadaasi ay barakiciyeen qoysas isla markaana ay carqaladeeyeen waxbarashada deegaankaasi. Hussein Farah was our staffing officer. Mandera, all of wasiirka arrimaha gudaha Kipchumba Murkomen wuxuu ku adkaystay in ciidamada Kenya oo ay ku jiraan kuwa difaaca dalka ee KDF-ta iyo booliiska ay si buuxda gacanta ugu hayaan xaaladda. Wax kasta ayaan samayn doonaa sidii aan u ilaalin lahayn dhulka Kenya, shacabkeeda iyo hantideeda. Arrimaha qaxootiga iyo xuduudaha waa kuwo lagu xalliyo dariiqa diblomaasiyadda. isku soo wada duube dowladda Kenya ayaa si rasmi ah u beenisay sheegashada ku saabsan joogitaanka ciidamo shisheeye oo jooga gudaha dalkani Kenya.